بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا كان يدين كل وداقيا قيب كم ده تاريخ ذا يدعدوين كي أن لكل مي طبعا كي سنة أودن بيجي لقب بلابو أما لقى صوب بلابو لابد يكون لحية طبعا كي إلا يهدى لابد يكون لحية لباتنك. xogtan aan idin wadaagayo waxaan ku soo beegayaa maanta ay tahay sanad guuradii tobnaad ee ka soo wareegtay maalintii ay bilaabmeen xarkahaygu in la xidho waxa weeye waxay bilaabmatay maanta oo kale 10 sano ka hor 18kii bishii koobaad 2016 muddada 10 sanadooda waxaa la iga xidhay 8 jeer ayaa la xidhay 10 sano waxay ahaayeen marka laga reebo sanadkii 2023 marka laga reebo 9 sano ee soo haray waxay ahaayeen sanad la qabto oo la xidho ama sanad jeelka dhexdiisa sanad igu xurta ayuu bay sanadahaasi ahaayeen ama jeel baan ku jiraayo halkaas uu sanadku igu soo galaa ama waxa weeye waa sanad baa la qabtayba waa 9 sano waxay ka dhigan tahay 9 sano in aanan marnaba aanan jeel ka marnay muddooyin kala duwan ayaan xabsiyada ku jiray waxa kamid ahaa muddooyinkii aan xabsiyada ku jiray mar waxaan ku jiray 485 maalmood 485 maalmood aan xabsi ku jiray mar kale waxaan ku jiray 416 maalmood 416 maalmood mar kale 100 maalmood markuu sii xigtay oo ka dambeysay 73 maalmood mar kale 43 maalmood mar kale 35 maalmood mar kale 9 maalmood mar kale 3 maalmood waa muddooyinka kala duwan ayaan xabsiyo ku soo qaatay haddaba xabsiyada aan ku jiray kuwa ma ahaayeen xabsiyada aan ku jiray aan muddooyinka ku qaadanayay kuwa ma ahaayeen iyaguna xabsiyo kala duwan bay ahaayeen waxa kamid ahaa xabsiga dhexe ee magaalada Burco sidoo kale waxa kamid ahaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa waxa kale oo kamid ahaa xabsiga dhexe ee Mandheera waxa kale oo aan xabsiyo ku soo qaatay saldhigyo muddaday doonta baa noqotay saldhigyo boolis sida saldhiga dhexe ee booliska ee magaalada Burco saldhiga dhexe ee booliska ee magaalada Hargeysa saldhiga dhexe ee booliska ee magaalada Berbera iyo saldhiga magaalada Hargeysa ku yaala ee saldhiga madaarka ama gegida diyaaradaha magaalada Hargeysa sidoo kale waxaan ku qaatay xabsi oo aan ku xidhnaa in muddo xarunta baarista dambiyada ay dadku yaqaaniin CID kaalkaana waan ku xidhnaa sidoo kale waxaan aan soo maray oo aan xabsiyadan soo maray waxa kamid ahaa xabsiga sirdoonka xarunta sirdoonka lafteeda ee magaalada Hargeysana waxa weey waa la igu xidhay waa xabsiyada aan soo maray waa inta aan ka xasuusto muddada 10 sanadood ee aan ka warramayo taariikhdayda ilaahay wuxuu igu arsaaqay ubad igu arsaaqay afar ubadka afarta marka mid laga reebo inta kale goob joog ma ahayn dhalashadooda laba waxaan ku jiray xabsi midna baxsad baan ahaayo maan soo gali karayn deegaankayga iyo magaaladan aan deganahay ee Burco walxamdulilaahi rabbil caalamiin isla 10 sano waxa jiray barnaamij samafala oo iyadii isagoo xabsigii jiro marna aan ku jiro marna aan waxoogaa xorriyada helayo waxa socday barnaamijka khayriga ee samafalka ee kaalme kuwan barnaamijkaasi wuxuu ilaahay sabab nooga dhigay aniga iyo saaxiibada ila shaqeeya in ilaahay sabab wuxuu nooga dhigay inaanu soo dayno maxaabiis iyagu ku dhibaataysna xabsiyada ilaa 16 maxbuus ayaan 10 sano ayaanu soo daynayna walxamdulilaahi rabbil caalamiin
qaar waxa weeye waxay xidhnaayeen muddo 20 sano qaar 11 qaar 10 qaar 8 qaar 7 5 3 2 wax walba way lahaayeen muddooyinka kala duwan mid kastaba waa dhibaataysnaa ilaahay baa sabab nooga dhigay ahlu khayrkan ula hadalay waan kaashanay qaar baa deyn lagu lahaa qaar baa mag lagu lahaa qaar baa maxay u baahnaa in loo dhaqdhaqaaqo intaba ilaahay waxa weeye 16 ka ilaahay waa noo fuudeeyay soo deyntooda walxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ka xasuustaa oo u dambeeyay ramadaantii la soo dhaafay uma dambeeyay laakiin waxa kamid ah dhacdooyinka igu soo dhacaya in dhalinyaro ah oo muddo 8 sano ayaan u maleynaya inuu ku xidhnaa xabsiga Boorama markii aanu soo daynay ilaahay fadligii hooyadii oo Djibouti joogtaan ula hadashiin marka hooyadii way rumaysan weyday inanka Yusuf baa loo jiray macquul ma habeela ma Yusuf baa marka waxa weeye waxa kamid ahaa Yusuf baa kamid ahaa gabadh Aamina Sheekho loo jiray gabilay ku xidhnay oo aan filayo in ka badan 20,000 oo deyno lagu lahaa aan ka bixinay markaan uga soo ururnay dadka ehlu khayrka in nin kale oo ma ahaayo 2021 baxay baa jiray oo 20 sano xidhnaa dad yow kala duwan aanan maxay hebel iyo hebel aanan u xasuusanay ayaa kamid ahaa 10 sano wixii baxay sidoo kale barnaamijka khayriga ba socdayo waxa jiray dad danyara oo aanu guriyo u dhisnay ilaa 9 guri oo qaarna ay fuleen qaarna aan gacanta hadda ku hayno ayaa noo qabsoomay muddada 10 sano walxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa kale oo jiray dhismayaal kale oo dhismayaal masaajid iyo malcaamado isku yaal oo quraanka laga baranayo ilaa 6 dhisme oo aanu anagu qaarna hadii aanu hay kaalme kuwan iskayo aanu u dhisnay iyo kuwa kale aanu ka qayb qaadanay intaba way isugu jireen oo wixii noo qabsoomay inta qura ma ahayn samafalku waxa weeye dad kurbadaysan oo qofba arin lahaa oo wax kurbadeeyay ayuu ilaahay sabab nooga dhigay 10 sano walxamdulilaahi rabbil caalamiin xabsiga gudihiisa dabcan wanidiin soo koobaya 10 sano wixii dhacay oo dhan muxuu ahay maanta idinka warrami maayo in baan idin soo qaadanaya kooban xabsiga gudihiisa markaan galo marar badan waxa ugu horeeyay aan ka qaban jiray waxaan noqon jiray macallin maxaabiista u noqda macallin bara af carabiga marka arday maxaabiis ahayd oo saaxiibadii jeelka ahaa ayaa ka faa'iideystay qaar waxa weeye mabay aqoon alif iyo ba maanta waxay yihiin markay barteen higaadi iyo af carabigi inay quraanka meel sare ka gaadheen walxamdulilaahi rabbil caalamiin qaarna iyagoo carabigoodu meel dhaxaha baan u sii wadnay oo waxa weeye manhaj baan u sameynay la yiraahdo duruus lughati al-arabiyya li ghayri an-natiqin biha oo alifay sheekh loo jiray Fani Mbadi Abdurrahim ilaahay uu naxariiste dardaaran waxaan ku gabagabeynayaa dardaaran waxaan idin kula dardaarmayaa meel walba joogtaan cabsida ilaahay ka baqa cabsida ilaahay ama taqwa baan idin kula dardaarmayaa taqwadu waa maxay cabsidu waa maxay waxa weeye awaamirta ilaahay oo la qaato nawaahida wuxuu ilaahay naga reebay oo aynu ka reebanaano waxa samee ayuu ilaahay nagu yiri inagoo sameeyna waxa ha sameyn inagoo ka joogsana qofka inta laga helaa waxa weeye ilaahay baa sheegay meesha ku dambeeyay muttaqiintu jannayna ku dambeeyaan ilaahay quraanka ku sheegay taasaan idin kula dardaarmayaa waxa weeye ilaahayna wuxuu yiri yaa ayyuhalladheena aamanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kuna dadaala in aydan dhiman idinku aan muslimiin ahayn kaalima ku dhimanina dardaarankayga ugu weyn waa ka khayr baynu isku ognahay waxaana idin la hadlayay maanta oo ay taariikhu tahay 29 Rajab 1447 hijriya oo ku beegan 18 January 2026 waxa idin la hadlayay walaalkii Cabdi Malik Sheekh Muuse Aldoon waxaana idin kala soo hadlayaa magaalada Burco khayr weyn baynu isku ognahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh